gurigeyga ugu ma wada kuugu imaad kaal wax iga bedel hay naam ana gurigeyga imaad ha gurigaada imaad kaal wax iga bedel war gurigeyga albaabkiisa taaganta ana qofka gurigeyga soo galo martiyo iyo wax ma ku sameey banaanka dhow kaaga soo doob baxa arbax balaan maxay tahay muu baxay ani kaal iska cidaadadi ana dadkan ma joogaan no soo galo martiyo iyo wax ma ku sameey banaanka dhow kaaga soo doob baxa arbax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا داود يا نبض هذا اللي كستو يدين تايم هو برنامج كني عويس كعنكا وستو صادق داون سير براها بشدة عن كلنا هي نوري ميديا عاو حمرتكوا سمي قرح قبل على عاو نقول السنين عن السوق قبلنا سودو oo ku dhawahay barnaamijkiina way saasa ugu dhawahay tana way dhowr su'aalood baa jira oo caawa noloshaada khusay laga weydiinayo way سؤال شكو بعد حقول عيسى سمي قرح ورطاطمة سمي قرح جور سوماليات أو كنا هالكاس يا حمر أنت ندل حس عادي قبل ذان هاي هاكاس وي وشيء دان أنت هير بيكسر كوبتي سؤال شلون هذا حيقول عيسى سمي قرح واحد إني راكوبن نقله وده عيسى تاريخ نولات كاكا كوبن oo ani ahaanti shakhsi ahaanteeda yaraanteeda ilaa hadda ani waxa soo bilaabay dugsi sare kuna waxbarashadeeda waxa ku ekeystay dugsi sare jaamacad ma gelin waxa leeyahay xirfadaas oo iclaan ana iclaanka iskaga jiro waxa arkay social media dadka dhan iskaga jiro dhankaas TikTok la qabsaday waxbarashadina TikTok ay dhaafay ana awal misleen TikTok soo galay video isku duubay meelaha soo dhigay dadka ku arkaan laakiin waxa u soo galayna xirfadeyda aan ku xayisiisto ama soo galiyo laakiin way badacday inaan iska soo duubo dhaxaqaado way soo qurux su'aasha kale waxay ku dhahaysaa yaa ku dhiirigeliyay inaan social media أنا أول أنا سكجرو أو حرفتي سكجرو وحيجو ديرسي أو قعمين كجيستي صاحبة ده مرنا ولا شيء ده حبي أو سودة تخنان مركا أيضا وما دعلنا ما أنت هنا أفر بقول كنا فولورز تيك توك جارو أيضا مزول كأ الله كسكنا وحنا مزول كهو إذا معنا رالي كأ وحسميناه هذا إيفن دعوه إنا وح قلد أسوق اليو وحيل ذا إنه يسوي عضو هو معنا قلد كسر حتى هذا وحير قرتي دو سوق وناتو كسر الله هو إذا معنا وصاحب ذا وهو إذا ولا شيء وحول بيته إلى يدافع أنت فرينه دافع هو إذا معنا لا في وسلام لنا سؤال شكرا سمي بركة جعلك محيط قانا جعلك والله جعل مكويس يعني وي محيط قانا معنيس جلبادتك حنونة جلبادتك حنونة يتقانا وي انت فيك قبل حديث عشاس ويساش يعني جعلك أنيس كبف يعني مو فهمتي يعني بس كده محد كامل سنتي مكويس تبعنا يوكل أول مغشان محد كامل سنتي waxaa ka aaminsanaa malaynad galiya wanaagsan yahay inuu xuyaa le maqlaani wal isku dheela wal isqiyaama adaa waxa jeclaanaysid oo loo jeclaana wafalaad waxa saani ma aaminsani waa musalsal soconaya way su'aasha kale waxay ku dhahaysaa Sumaya maxay jeceshoorta ani waxa jeclahay oo riyadeeda ay tahay inaan soo xajiyo second waxa jeclahay hooyadeeda macaan second inaan noqdo qofka social media muhiimad kale meel fog inta ay ka badan hada su'aasha kale waxay ku dhahaysaa muddooyinka u dambeeyay waxa safar kala duwan ku marisay gobolada dalka adigoo Muqdisho ka soo kacay garoowe boosaaso tulaas caano intaasoo safar maxaa kaaga baxay waxaa igu la baxay inaan dalkayga hooyo kala bartay tuulooyin badan soo bartay meelo aad u qurux badan sida boosaaso buuraheeda quruxda badan garoowe nabadeeda degan iyo laas caanoodo hadda si wanaagsan u arko iyo waxa ugu la yaabka badan skies
studio oo ah meesha ugu wanaagsan laascaanood ugu sawirada qurxan intaas way sumaya bal waxaad noo sheegaysaa 3 shay oo adiga boorsada ku qaadato aadan ka maarmin la'aantood waa horta faasti waa rooseto kan labaadna wuxuu noqon doonaa marka uu yacni qofka uu safariyo oo kale wuxuu qabtaa xaafadaad ka soo baxdo adigu la'aantood aadan socon karin boorsadaada aan ka maqlo Colgate way laba hay saddexaad waa sarjin galino mobilkayga saddexda iyo wixii kale aa wato wixii kale soo raaca wixii kale soo raaca sumay qurux lasaanood baad joogtaa caawa maxaad kala kulantay markii horese maxaad aragtidaad markii hore ka haysatay maxay ana horta laascaanood korle ka maqli jiray weligay ma imaanin xataa dhalo kumaanan arkin marka waxaas dhahay meel waxaa waaye dad dhan ay ku nooleen oo dad yaryar ay ku nool yihiin meel si kale ay leeyahay laakiin hadda walaa marka arko malaysan waaye buuraha quruxda badan dadka guryaha iska studio waana ka maqlayn meesha dad waaweyn meel waaweyn meesha ani gobol ma dhigi kari magaalo dhigi caasimad xigeen su-aasha kale caasimada labaad ee Soomaaliya laascaanood doori laani su-aasha kale waxay ku dhahaysaa sumay qurux haddii caawa la weydiiyo oo xukunkeeda gacanta loo geliyo tiktok maxay ka jooji haddii lagu dhihi lahaa caawa aad amar u haysato maxaad ka mamnuuci lahayd oo tiktoka ma fahmin igu soo celi caawa macnaha madaxweynaha lagaa dhigay lacala amar waxaad u leedahay waxaasaad joojin kartaa maxaad dhihi lahayd tiktok caawa waad ka joojin lahayd tiktoka dhan ha xiri lahayd tiktok dhan waa iska kaftamaya tiktoka si dadka u isticmaalaan dadna si wanaagsan ay usoo galaan oo caadi way iska baashaale waqtigooda siiyaan dadna ayagoo isqaawinayo ay soo galaan laakiin alxamdulilah midkood ma ilaahay dhaqanxumada waa ka joojin lahay wax kale ma ku sameyn lahayn waa community la dhihi lahay intaasina waa amarkeeda oo 5 sano soo socota wala calaamada 5 sano ma rabi inaan noqdaani waxaas shaqadaas ay gelin aan tiktok iska wareega iska jeclaan lahaa macnaha su'aasha kale waxay ku dhahaysaa haddii caawa lagu dhaho sumayay farxadda qof ku tilmaam farxaddii qof ayaa dheelayd qofkaas macnaha waa farxaddii qof kale ma haysti oo hooyada macaan mar walibana ala hadlo farxad hadda gobolada ku maqana inta jeera u xiisay wallahi waa malaysan lahaa laakiin marka la hadlo waa farxa jiwga dhan ay bedel moolaa hooyada macaan jeclaha kaalinka buuxa hooyada boskeeda in nolosheeda ayada ku leh waayo ida maanta inta ay soo gaarsiisay inaan soo baxayda raali ka ahayd inaan iska soo baashaa la soo dalbartane waxay ayada igu soo fasaxda waaye igu soo dhiirigelisay inaan dhulkayga hooyo soo kala barto markaad u yaraad farxadeedaad ku tilmaamay farxadii qof hooyadeeda macaa cidna kama dambayso cidna kama horeyso si wanaagsan way halkan ka salaamayna maamo ma jecla hooyada qacli way barnaamijka waxaan soo gaarnay gabagabadiisii asxaabta ku daawanaysa iyo kuwii adiga kugu xidhnaa fariintaan halkan u fariiso waxaa fariin uu faraya waxaa waaye ku barta dalalkiina hooyo soo dalbartaa sida anagu soo dalbaranay oo kale waxaa ka fahmaysaa waxyaabo aad u muhiimsan aad marka hore garanaynin muqdisho iska dhex joogtaa xamar iska dhex joogtaa wax buura ma arkaysa laakiin boosaaso iyo garoowe iyo laascaanood iyo gobolo kaloo hadda noo dhiman ugu soo dhowdaa kaalgac insha allah kamisoon tahay waa meelo aad u qurux badan wallaahi waxaa dhihi lahay dalalkiina soo kala barta midda kale inta fariin waxaa u dhaafaya sky studio oo kaalin weyn ku leh laascaanood waa dadka keliya meesha u shaqan tahay aan meel kale ma arkin yaali eedin ayadoo ku haystaan meeshaan kaaliga dhex baxsho intaa joogo su-aasha aynu barnaamijka kusoo gabagabeynayno sumeyn qurux waa caawa inala fadhidaa noloshii caannimada ka hor iyo noloshan hadda waad caan tahay farqiga u dhexeeya muxuu noqonaya
wallaahi marka aanan caan ahayn horta dadka ka sheekeynaa maanta yacni marka aada caan ahayn cid ku rabto ma lahan oo mulugsoo raadinaa ani waaga iskoolka dhigtay waxaa xasuustaa ana caan ma ahayn markaa form 4 soo noqday aan tiktok bilaabay waliba bisheeda labaadaa bilaabay markaa bilaabay form 4 anoo bish labaad ka wada bilaabay tiktok waxaa ku soo galay haddana hakad ay ugu imaaday hakadkaas inta ka soo tago dadka qaar waxa waaye markaad caan tahay ay ku soo raadinayaan markaa caan ahayn waxaa arkay dad markaa caan ahayn oo yacni garab istaag iska daayay xitaa macnaha inaad dad u tahay aan ku aqoonsanin laakiin markaa caan noqday alxamdulilah maanta heerkaan aan maraayo soo wacay lagu dhahayo heblaayo waxaa u baahanayn waxaa sii samaysay hello shalay booska taagneed maantan taagnaanaysaa ma fahanti waxaa ani fariin dhaafaya dadkaan aan caanka yihiin yaa luu diganin soo qofku maanta boosku taagan yahay bari ma istaagsanaanayo qofkii shalay boosku istaagsanaanay basi istaagsanaanayo wuu isbedelaa sida saacadda isku bedesho dadkan isku bedelaa fariinta soo dhaafaya ani ahaanteydani waxaa caqabado badanaa kala kulma caannimada dad badanoo wejiga kuu bedelay iyo dad wejigooda farxadeed kuu soo dhaweeyeen dadaan u baahnay inaan inta ka sheego caannimada waxay u arkayeen si kale anina markaas caan maanan ahayn alxamdulilah dad yani muhiimadeeda ani waxay ahayd inaa cilaankayga soo saarto xirfadeeda soo bandhigto alxamdulilah hadda way ii hirgashay bukiyeero badanoo muqdisho u waaweynaa kasoo shaqeeyey laakiin hadda inaan qof dambe shaqaalo u noqdo ma rabin aabahay wuxuu ugu dhahay intaan noolahay shaqaale ma noqonaysa fariintaasna aabahay waxaa igu garab istaagay igu dhiirigeliyey talo wanaagsan aaba boosku ii taagayana qofna ima taag midda kale inta fariin waxaa ugu dhaafayaa dadka ala xishmeeyo dadka caanka ahayn macnaha ala garab qabtaa leeyahay ani waa anaa og processka usoo maray mar dhanaan niiga sheekeyn doonaa barnaamij kale ka yeelan doonaa intaa laasacaano joogo safaradeedana waa niisoo gudbi doonaa insha allah haddaan kaaga mahad celinaa waqtigaaga quruxda badan ee nagu qaabisay inaad barnaamijkan nagala soo qayb gasho asxaabta intaas wuxuu ahaa barnaamijkeeni caweyska caanka oo ay dalab iyo martiqaad koleydii wufuudda iyo martidu way kala culus tahay dalabna way ku timi martiqaadna way noo ahayd annaga wayna naga aqbashay aad baad u mahadsantahay baan ku leenahay aniga asxaabta iyo asxaabteeda waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah